Kusoo dhawow janalka Big Deer News. Fadlan haddaad ku cusub tahay janalkeena saar subscribe, like and share. Gaarsii asxaabtaada kana faa'iideyso adiga dadkana u faa'iiday. Fadlan gaarsii walaalka aan ogeyn kanaalka. Inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun. Waxaa goordhaweyd ku geeriyooday dalka Imaaraadka Carabta qaasatan magaalada Abu Dhabi madaxweynihii hore ee koonfurta Soomaaliya Maxamed Axmed Sinaayo. Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye. Wuxuu muddooyinkii dambe ku xanuunsanaa magaalada Abu Dhabi oo ah caasimadda dalka Imaaraadka Midoobay. Madaxweynihii hore ee waqooyiga Soomaaliya ayaa lagu tilmaamaa inuu ahaa madaxweynihii ugu fiicnaa ee soo mara Somaliland ama waqooyiga Soomaaliya. Madaxweynahaas ay dadku aad iyo aad u jeclaayeen waxqabadkiisii horumarinta amniga, dhaqaalaha iyo sareynta sharciga uu ka hirgeliyay waqooyiga Soomaaliya. Axmed Maxamuud Sinaayo ayaa maanta ku baxay isbitaalka magaalada Abu Dhabi. Waxaanu leenahay naxariista jannaha Ilaahay ka waraabiyo, sabir iyo iimaan Ilaahay ka sii dhamaan ummadda Soomaaliyeed.